halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOS waxaa habeen hore lagu soo bandhigay gobolka Virginia film loogu magac daray Silent Cry ama oohinta qarsoon oo laga soo duubay qaxooti iyagu ka soo qaxay gobolada loo yaqaan Ogaadeniya ama kilinka shanaad ee Ethiopia. Haddaba filmkani oo run ahaantii qiiro badnaa ayaa haddana waxa uu watay su'aalo badan oo isweydiin mudan. Fatxiye Maxamed Cabsiye oo ka qayb gashay soona daawatay filmkaasi ayaa warbixintani nooga diyaarisay. musiga qiirada leh aad maqlaysaan waa filimkaas oo magaciisa la yiraahdo Silent Cry ama oohintii dahsoonayd. waxay isugu yimid hotelka Marriott ee lagu soo bandhigay filimkan dad tiradoodu gaadhayso ilaa 200 oo qof dhifa mooyaane inta kale ay ahaayeen dad Soomaaliyeed. filimkan oo aanu hore uga waranay ayaa waxa sameeyay wiilal dhalinyaro arday ah oo Soomaaliyeed oo ka tagay dalka England kadibna sida ay sheegeen iyaga oo jooga magaalada Nairobi la kulmay nin taksiile ah oo ka soo qaxay kilka shanaad ee Ethiopia. dhalinyaradan ayaa sheegay in markii ay ninkaasi waraysteen uu u sheegay in qoyskiisii la xansuuqay sidaasina uu ku yimi dalka Kenya. waxa kale oo la wadaagay dhalinyaradan inay jiraan dad kale oo qaxoonti ah oo ka soo cararay kilka shanaad oo uu ka jiro xansuuq Soomaalida lagu hayo. waa sida ay u dhigeen dadkaasi oo isugu jira caruur, haween, rag iyo waayeelba ay dhalinyaradaasi damceen inay indhahooda ku soo arkaan. kadibna waxa ay u boqoleen xerada Dadaab oo ay kula kulmeen dad ay ka muuqdeen muuqaalo runtii murugo leh oo isugu jira gubniin, jirdil, lafajajab iyo muuqaalo aad iyo aad u foolxun. dadka lafajabka iyo gubitaankuba ka muuqday ayaa waxa ka mid ahaa caruuro yaryar. haween filimka ku jiray laftoodu waxay sheegeen in la kufsaday, qaarkood waxay sheegeen inay xabsi ka soo carareen oo ay weli badankooda qoysaskoodiina xabsiyadaasi ku jiraan. waxa meesha filimka lagu soo bandhigay ku sugnaa wiil ka mid ah wiilashii ku soo duubay filimka oo isagu ah ka filimka dadka ku wareysanaya, Cabdishukri Cumar. Cabdishukri ayaan weydiiyey waa sida ay waaya aragnimadani noloshiisa wax uga bedeshay. Not just me, but I think the most of our students is gone in there. It has become a change of life, change of directions. I can describe myself before lazy, unknowing. aniga keligay ma aha, laakiinse badankayaga ardaydii iyo dhalinyaradii halkaasi tagtay si weyn ayaa wax isaga bedelay noloshayadii. markii hore haddii la weydiiyo qof nooceeya ayaa tahay, waxaan isku tilmaami lahaa qof aan waxba dan weyn ka lahayn, iska nool naftiisa keliya ka fikira oo raaxada adduunka iyo dalka aan ku noolahay uun ka faa'iidaysta oo intaasi uun daneeya. Huda Cabdiraxmaan Yuusuf oo ah madaxa ururka magaciisa la yiraahdo African Rights Watch oo ah urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dadka reer Afrika oo halkaasi ku sugnayd ayaan iyana weydiiyey waa maxay waxa ay isleeyihiin filimkani uu soo kordhin doonaa difaaca xuquuqda aadanaha ee ay u halgamayaan. What we're trying to do with this national campaign, international campaign, is to let people be aware of the situation, and from the awareness then we can hopefully waxaanu u ololeynaynaa inaanu dadka oo dhan ogeysiino inay jiraan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanuhu. waxaanu doonaynaa inay dadku helaan raashin, biyo iyo meel nabad ah oo ay ku noolaadaan. u malayn maayo in waxyaabahaasi yihiin waxyaabo weyn oo loo doodo. waxaanu ku rajo weynahay in marka ay dadku maqlaan cadaadiska iyo xuquuq darrada lagu hayo ama isku hayaan dadka Afrikaanka ahi, hadday yihiin dumarka reer Rwanda, kuwa reer Congo iyo kuwa Soomaaliyeedba, waxa jira dumar badan oo Afrika ku dhibaataysan. waa inay dhibaatadaasi joogsataa, waana taasi ta aanu xarbiyeynaa. haddaba maadaama hadallada ugu badan ee aad ka maqlaysay goobtaasi filimka lagu soo bandhigay ay ahaayeen in dhibaato lagu hayo beelo badan oo Soomaali ah oo degan kilka shanaad, waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Ciise oo isna xubin ka ah ururkaasi African Rights Watch. waddankaas waxa ugu shisheeya waa Diridhaba iyo ama Amazonka Shinile weeyaan. reer Shinile ayaa maanta ugu dhib badan. waxa weeyaan waa xuduudda ay Djibouti la leedahay. qofka shilaabo jooga iyo qofka Shinile isku dhib baa haysta. marka regardless qofku cidda uu ka soo jeeday iyo qabiilku yahay, qabiilku waa waxa inoo kala qaybiyaan inaga, laakiin Soomaali waa Soomaali, ama Shinile ha joogo ama shilaabaha jooga isku sibaa loo dilaa. marka dhibaatadani way wada saamaysaa, waa dhibaato wada haysata Soomaalida ku nool kilka shanaad oo dhan. walaalo way wada haystaan, waa dad guumaysi ku wada jira, way isla dagaalkay ku wada jiraan, halgankay ku wada jiraan. dadka hadda dibadda ka halgamayana cid walba way leedahay. meel walba oo ay Soomaali ku nooshahay waa dad ku kala qaybsan ilaa iyo dalkoodii ay ku xorta u ahaayeen.
waxaana la ogyahay inay jiraan cabashooyin ka soo yeedha dadweynaha kililka shanaad oo sheega in jabhadda ONLF laftoodu ay cadaadis ku hayso shacabka oo ay ku eedeeyaan inay jaajuusin yihiin haddii aanay dagaalka ka qayb gelin marka ayaa loo cawdaa yaase laga cawdaa maxamed ayaan haddana weydiiyey waa maxay guusha ay isleeyihiin way gaadhi karaan haddii ay xataa indhaha beesha caalamka u soo jeesato suudaanba shalay waa laga gaaray maantana daafuur waa loo gurmaday marka arrintan haddii caalamka indhihiisa ugu soo jeedsado oo dadaalka loo galo waxaan aragnaa waxay laga maarmaan noqonaysaa un xal siyaasiya in waddankan loo helo murugada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waa mid caan noqotay waana mid ay marmarka qaarkood beesha caalamku u arkaan inay iyagu yihiin dad dhibaato joog ah haddaba su'aashu waxay tahay yaa masiibadaasi ka dulqaadi kara ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ka sukow oo aan iyaga ahayn taasna waxay ahayd farxiye maxamed cabsiye iyo waliba barnaamijkii la magac bahay ooyinta qarsoon ee laga diyaariyay filin habeenkii xalay lagu soo bandhigay magaalada waa gobolka Virginia